kusoo dhawaada kanaalkeena Warsida Media oo alaaba aad ka heshaan warar iyo warbixino muhiim ah. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe garee haddaa horey noola joogtayna la wadaag asxaabtaada. Waxaa halkan idinkugu soo gudbinayaa video yaroo kooban oo aan idinkaga tusi doono step by step sida ku samaysan lahayd Binance. Ugu horeyn waxaad tegaysaa binance.com oo ah page-kooda ku dhufanaysaa. Markaa ku dhufato waxaa kuu soo baxaya page-kan. Waxaad taabanaysaa register, email-kaaga gelinaysaa, kadibna calaamadaas tigta ah next ku dhufanaysaa. Waxaa lagu soo diri doonaa email verification. Kadibna email-kaaga tag, waxaa soo koobiyeysaa OTC number-kan lagu soo diray, koobi kusoo dhufo. Kadibna waxaa kusoo noqonaysaa page-ka. Waxaa gelinaysaa OTC number-kii aad soo koobiyeysay, paste ku dheh, next ku dheh, kadibna password-ka geli. Password-ka markaa geliso, halkan wuxuu keenaa waxaa lagaaga baahan yahay halkaa marka inaad geliso referral ID. Referral ID-ga waa kaa dusha sare aan kugu soo qoray, sidoo kalena qaybta commentiga ee hoosna waa ka helaysaa. Haddii kalena qaybtaa kore intaa ka akhrisato number by number waa u gelin kartaa, kadibna done dheh. Intaa markii aad ku dhufato wuxuu ku geenaa qaybta verification-ka. Marka si ID-gaaga iyo warbixintaada iyo xogtaada ay u helaan, qaybta ID verification-ka lagu geynaa. Waxaa lagaaga baahan yahay 1 inaad haysatid ID ama passport, 2 inaad haysatid address. Waxaa lagaaga baahan yahay address iyo ID labadaba inaad gelisid. Tushaas waxaad taabanaysaa waddanka aad joogtid, kadibna next baa leedahay. Sawirkana kuu soo baxaya marka QR code-ka. QR code-kan laba siyaaboodba waa ku verify gareyn kartaa. Taleefankaaga waa ka verify gareyn kartaa, laptop-kana waa ka verify gareyn kartaa. Taleefanka kuu fudud waxaad taabanaysaa scan-ka, qaybta scan-ka taleefanka ka scan gareynaysaa. Markaa scan-ka aad saartid, warbixintii oo qaybtii verification-ka taleefankaaga kugu soo haraysaa, halkan oo kale kuu soo baxayso. Waxaad taabanaysaa marka meesha verify ay ku qorantaa ku dhufanaysaa. Kadibna waxaa kuu soo baxaya warbixintan. Waxaad taabanaysaa waddankaagii, kadibna continue waa leedahay. Waddankaaga gelinaysaa, magacaaga gelinaysaa, taariikhda dhalatay gelinaysaa. Intaa markaa dhamaystirto next dhexda halkan kuu soo baxaya marka. Meesha waxaad gelinaysaa ID-gaaga, taleefankaaga, warbixintaas oo dhan lagaaga baahan yahay. Halkan waxaad kasoo dooranaysaa waddankaad joogto, ama passport baa gelin kartaa, ama ID baa gelin kartaa, ama residence. Halkan marka waa saa u gelin lahayd. Qaybta hore baa scan gareynaysaa, kadibna qaybta labaad. Kadibna waxaa lagaa rabaa sawirkaaga inaad sidaas u upload geliso, wejigaaga uu soo qabto. Intaa markii aad samayso waxaa ku dhufanaysaa continue. Waa selfie baa hadda iska qaadaysaa, soo jeed. Selfie-gaas markaa saa iskaga qaado waxaa kuu soo baxayo video verification. Qof baa kula hadlaya, qofkaa kula hadlaya warbixintiisa ka dhamaynaysaa. Taleefon number-kaaga waxaa lagugu soo dirayaa code. Code-kaasaa gelinaysaa. Su'aalo yaroo kadib uu ku weydiinayo qaabka u investigate qaybta sababta aad u furatay. Su'aalahaas markaa ka gudubto kadibna qaybta waxaa gelaysaa address-ka. Waxaa gelinaysaa address-kaagii, magaalada aad degan tahay. Proof of address uu ku weydiinayaa. Waxaa gelinaysaa warqadaha oo address-ka kugu soo dhacay sida biilkaaga iyo waxaas oo kale baa upload ku samaynaysaa. Markaas waa upload garayso. Kadibna sidaas ayuu warbixintaadii ugu gudbinayaa qaybta Binance-ga. Ayagaana markaas intay fiiriyaan bay waxay kuu soo samaynayaan verify. Haddii aad si fiican u fahantay warbixintan, nala wadaag fariimahaaga. Haddii aadan wax mugdi kaaga jiraan noo soo sheeg si aan fiidiyowyada dambe kugu soo faahfaahino. Aad baa u mahadsantahay.